waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da hidda ahaan soomaalidu baryootanka ma jeclaan jirin ruuxii lagu bartana way ku nici jireen iyada oo aan cidnaba loogu dulqaadan ayay haddana gabyaaga ugu sii darray af iyo murtiba meel ha dhigtee hal abuurka baryootama maan iyo maskax furantoona maansadiisa kuma ay dhegaysan jirin qofka ugu roon ayaa wuxuu ku hiifi jiray inkaarqabuhu waa gebyi og yahay baryootan baa tixihiisa ka buuxa haddii ay kolka baryadu tahay wax ay bulshadu darrowdo hal abuurkuna uu sidaas ugu maamuus jabo waxaa iska cad ujeedda ahaan maansada caynkaasihi inay suugaanta soomaalida aad ugu yar tahay inta laga yaqaanina dhowr kama badna runtii bulshadeennii hore qofkeedna ma jeclayn inuu dadka u sheego tixa baryootana oo aabbihii ama awowgii uu tiriyey haddiiba uu wariyayaal kale ka maqlana kuma uu farxi jirin iyada oo guud ahaanba ay arrintu sidaa tahay ayaa haddana waxaana soo gaaray gabay baryootankii ugu daraa xambaarsan isla markaasna maansayahankii tiriyey aanu quursi ku mudan laguna haraamin oo maxay sidaas ku noqotay ma isleedahay kol dhow baad ogaanay bar hadalkayga dhagaha u raarici waxay sheekadani dhacday xilliyadii ay soomaalidu ahayd raacatada dhabta ah ee aanay magaalooyinka yeelan guud ahaanbana degaanka xoololaydu waa oomane cimiladiisu ay kulushahay sidaa darteedna kol walba baahida biyuhu waa joogto jiiraal muggay tahay ayayna ugu daran tahay waxaa kala fogaada halka ay ceeshu ku taal iyo berrimada ay xooluhu ku barbixi karaan ee daaqa ku hara awgiis loo eexaysto waa xilli dhib badan si xallad lehna waxa uga soo doogi kara uun kolba ciidan ku filan iyo gaadiid xoog leh qoyskii haysta haddaba sheekadan gabayga baryootanka ahi uu waariyey waxay ka dhacday degaamada hababkaas looga noolaa mid waxay dhex martay laba reeroo labaduba xoolo raacatada soomaalida ka mid ahaa isla markaana xidid ahaa barbaar labada reer midkood u dhashay ayaa reerka kale gabar ka doonay dabadeedna waa la siiyey waana loo dhisay kadib markuu bixiyey xoolo iyo xarrago kaleba wixii yarad ahaa ee lagu heshiiyey waayadii dambe markii la isa sii bartayna wuxuu noqday nin la mahdiyeyoo u xilqaba gabadha aabbaheed hooyadeed iyo dhammaan xigta iyo xigaaro wixii ay iyada hilba ahaayeen weliba wuxuu si gaara ugu roonaa nin seedigiisa oo saboolnimo iyo xaas weyn la isugu daray seedigiisaas oo gabyaana ahaa ayaa u tegi jiray xilliyada kulkulul ee nacfiga xooluhu uu gabaabsiiyo dhaaxuu kala soo noqday geel maal ah ama ari siisma ah oo jiiraalada uu ku dhaafay sidaas la ahaadaba gabadha ninkii qabay ayay waa dambe tii alla u timid nin wanaagsan buu ahaaye waa loo wada baroortay waa la wada tebay waxaase ugu daraa afadii da'da yarayd ee uu ka geeriyooday ibraahim iyo ciise oo ahaa labadii wiil ee ay u dhashay iyo gabyaagii u seediga ahaa ee tabantaabada gaarka ah ku qabay dabadeedna kolkuu dhowr bilood mootanaa ayaa ku ay walaala ahaayeenay qoyskii soo dhex fadhiistay iyada oo ay dantiisu tahay gabadhii inuu dumaalo sidaasna uu ku buuxiyo halkii uu walaalkii banneeyey waa siduu xeerku ahaa ee looma diidin waa la siiyey waana loo meheriyey isaga oo aan yarad la weydiisan isna aanu ku yaboohin lase ogaayo dadku iyaga oo walaalaa ayay haddana kala anshi duwan yihiin iyaga oo uur hooyo ka soo wada baxay ayay kala dabeecad noqdaan ninkii gabadha ka geeriyooday haddii wanaag lagu bartay lana wada jeclaa walaalkiisii dumaalay sina ula mid ma ahayn wuxuu noqday nin aan dan iyo heella ka yeelan sodoh iyo seeditoona dadka kalena aanay uga socnayn maalintii dambe iyada oo in yar mooyee bulshaweyntu aysan sidaas wax u wada ogaan ayaa xoola raacatadii degaanka waxaa ku habsatay abaar kululoo dad iyo duunyaba loo baqay xilliga sidaasa iyadoo lagu jiro ayaa gabyaagii dhibaato weyni la soo gudboonaatay waxaa ka baktiyey gaadiidkii uu carruurta u dhaansan jiray markaas bay biyo ceel u beeleen saaqoyskiisii iyo haraad baa mataanoobay tol iyo qaraabo wixii ay degaan wanaagta ahaayeen ayuu wada holliyey wax gacan ah markay u fidin waayeenna waxaa ku soo dhacay reerkii ay walaashii carruurta u lahayd iyo dhowaanta ninkii dumaalay ee ay ku xidideen ma labalabayne intuu kabihii halhaleel u iladay ayuu u sadcaalay reerkaasoo uu u malaynayay in wax uga go'i karaan dantiisu waxay ahayd awr uu dhaansado inuu ka soo eriyoodo qaalin uu abaarta kaga soo doogo doonka iyo maatadana uu ku badbaadsado ha
yeeshee habeenkuu u hoydayba waa loo dayriyey haddiiba wuxuu ogaaday reerku kii uu yiqiinay inaanu ahayn waxaa u caddaatay ninka gabadha dumaalay kii ka dhintay inuu si walba uga duwan yahay mar buuba u maleeyey inuu soo habaabayoo qofkan uu la hadlayaa aanu ahayn kii uu awrka u soo doontay ee ay walaashihii u dhexday si walba wax u tusaale si walbana ugu cabay waxbase kaga heli waa dabadeedna hadal dabacsanna allaha ka dhige wax xididin ah kolkuu ka dareemi waayey ayuu candhuuf dib u liqay kolkaas buu is yidhi waa kanoo tiraabkii kuugu jixinjixi waaye bal xagga maansada ula bayroo gabay wax ugu sheeg suu wuxuu tiriyey gabay baryootana oo uu seedigiisna ugu faahfaahinayo sababaha ay tahay inuu awrka ku siiyo hor iyo horraanba wuxuu u sheegayaa oo masooraha uu reerkiisii kaga yimid iyo oonka ba'an ee jifadiisa ku haysatay wuxuu xusuusinayaa walaalkiisii geeriyooday taakuladii uu ku qabi jiray iyo sidiisii oo kale inuu isagana ka filanayo haddana wuxuu dareensiinayaa dantiisu awr uun inay tahay aanay ahayn farda iyo wax uu nin weyni u baryootamo nin weynina uu u diido markaas buu ku beerdulucsanayaa gabadha iyo wiilasha labada ah ee ay haysato isaguna uu adeerka u yahay wuxuu ka digayaa haddii awrka la siin waayo gocasho aan harin inay wiilashaa ku reebi doonto weligoodna ay uurka ku hayn doonaan sida abtigood loo galay iyo maalin maalmaha ka mid ah sida reerkooda loogu hungaysiiyey meel kale wuxuu ugu ballanqaadayaa muraadkiisa hadduu helo weligiis iyo allihii inuu u ducayn doono walaashiisna ay u dhali doonto wiilal kale oo kuwii hore la mid ah kuwaasoo iyaga oo aan dhalanba uu tixda ugu magac bixinayo wuxuu adduun badan nimaan uga bartaad ehel wadaagtaane adigaa ifkii kaga hara ee awr ha la isiiyo waxaa lagu adkaystaa sangiya ubaxa laalayse afku nirig hadduu igaga dhacay awr ha la isiiyo agoontii walaalkaa ka tegey ha uurku taalaynay abtigooda laqadi waa xuntee awr ha la isiiyo inay inamo badan kuu dhashoo aadan iyo nuur leh ibraahim iyo ciise oo kale aad ka abdanaysaaye ifka intaan ku noolahay ducaan kula ag joogaaye ardaageedana lagu dhargiye awr ha la isiiyo abtirsiinaday waa ragguu ubaxu saaraaye adiguna irdaha samatar iyo oodantaa tahaye waa raggobaa adduunkala gurtee awr ha la isiiyo marahayga wuxuu ahaa gabyaaga keliya ee inta maanse ku baryootamay loogu dulqaatay welibana loogu garaabay sababtuna siday ila tahay waa tixda ninkii lagu baryey siduu kaga jawaabay wariyayaashu waxay noo soo tabiyeen gabadha ninkii qabay inaanay tixdaasi inaba dhaqaajin seedigiisna uu awrkii ka lexa jeclaystay waxaa hubaal ah haddii gabyaaga neefkaa la soo siin lahaa inuu bulshada ku dhex ceeboobi lahaa in la cambaarayn lahaayo maansada baryootankaa uu yasid ku mudan lahaa ha yeeshee wixii la odhan lahaaba waxaa loo wareejiyey ninkii uu sidaa u bariyey ninkii walaashii qabay dhabcaalkii qaalinku la weynaaday ninkii inta gabayga si walba loogu bariyey ku soo loodsami waayey allaha u naxariiste xaaji aadan cali wadaad oo sheekadan iyo tixdaba ii mariyey wuxuu ku soo gebagabayn jiray markuu gabyaagu noqday tixdiisiina la maqlay in la xooleeyeyoo nimankii uu ka dhashay ay awr iyo geelba inta u qaaraameen baa ay xeryaha u buuyeen tolow maseedigiisii soo qadiyey bay sidaa kula xintamayeen u maleh dhegaystayaal hiddaha soomaalida markaad dib u malicsato ee dhan walba aad suugaanteeda ugu faalasho waxaad ogaanaysaa baryadu inay ka mid tahay dhaqamada aan la jeclayn qofka baryootanka lagu bartaa haddii uu soo muuqdo waa ka nexi jireen la kulankiisa waa ka warwareegi jireen waayaha dambena wuxuu ku dambayn jiray waayeelka dhexdiisa ruux aan laga tixgelin lana yaso waxay ku mahmaahi jireen baryo badan iyo bugto badanba waa laysku nacaa weliba waxay ugu daran tahay ruuxa baryootanka ku caanbaxaa kolka uu gabyaa yahay had iyo jeer hal abuurkii hore ee soomaaliyeed wuxuu ku dadaali jiray dhaqan ceebeed oo idil inuu ka fogaado dhaqan ceebeedkaas oo baryada iyo hunguri xumadu ay ugu sii liiteen xidigiisa ayaa dhici jiray maalinta la isu sheego madal la isugu yimid inta looga gabaysiiyey in wax lagu siiyey wax kastaoo gabyaaga ay tilmaamahaasi ku tirmaanay uu tiriyana dhab uma ay dhagaysan jirin si fududna waxaa ugu haadsan jiray maansayahanada kale ee laga yaabo berri ka maalin colaad maanso intay dhex marto inay isu gabyaan gabyaa la odhan jiray xasan shiil oo bilowgii qarnigii 20aad ka mid ahaa dadkii hobyo looga talin jiray ayaa taa oo kale intay ku dhacday kol dambe lagu haadsaday wuxuu ku jiray sadanadii hobyood ee reer Kennedy maansayahanadii daacadda u ahaa waxaana magaciisa cirka ku shareeray geeraar habaara
oo uu sayid maxamed ku kohaamay kaasoo dartiis naanaysta gabay aweyti uu gadaalkii kula baxay. waa geeraarkii uu ku odhan jiray ilaahow ama dil ama doori ama diinta ku toosi ama gaalada dooni duhur maalina sii ilaahow duceeyey oo darta ahaan u sujuudaye dad intiisa kaleeto ha ka dooran ninkaas. dabadeed bartamihii 1940 goor lagu wado ayaa Ismaaciil Mire oo ka mid ahaa muqadimiintii daraawiisheed kuwii ugu magaca dheeraa wuxuu maqlay saraakiil Ingiriis ay goob ay joogeen in gabay aweyti loogu yeeray. gabaya inuu ku maaweeliyo in la weydiistay markuu dhameeyeen ahoo aan sii ridnayn in halkii lagu guddoonsiiyey. Ismaaciil oo xasan shiil ugu xiil qabay sayidka iyo daraawiishta xihii uu ku maagi jiray ayay la noqotay inay habboon tahay dhacdadan inuu gabyaaga ugu halqabto. markaas buu gabay dheer oo uu tiriyey wuxuu ku daray tuduc uu maansayahanka ugu halqabanayo kaasoo ahaa inaad gabay aweytow lafaha gabi ka xoorayso oo aad galbeed tegi adaan guuyo badan haysan aad googo-yar iyo u xilan rodol la soo gooyey aad gacaliyow cuni calaal lagugu gaadayo dhalashadaadii ku gadan gelin waxaad quudan oo lagu gayeysiin wixii xalacba loo geystay aad ceeb la gulublayn inaan garanayaan sheega. bulshadii raacatada ahayd ee Soomaalida sidii ay baryadu ula fool xumayd iyo gabyaaga baryootama sidii uu ugu magac beeli jiray waxay inoo sii iftiimin karta bilowgii qarnigii 20aad sheekadan lagu wado inay dhacday ee wariyayaashu ay inagu soo simeen. waxay dhex martay laba nin oo ilmo adeer ahaa degaankii ay ku noolaayeen iyo ka fogbana uu magacoodu dhab ugu faafay. labada midi waa gabyaagii caanka ahaa ee haddana dagaalyahanka ahaa waa Faarax Xasan Cali oo Faarax Afcad lagu naanaysi jiray. maansayahanadii qarnigii 19aad raggii ugu miraha iyo magaca weynaa ayuu ka mid ahaa. si gaar ahna taariikhda suugaanteenu waxay ku xusuusataa ujeeddada nafti hafarka loo yaqaan ee isagu uu maansada Soomaalida ku soo kordhiyey. ninka kale waa Gaashaan Cabdilla Cali isaguna waxba yuu gabyaa ahaane wuxuu ahaa ammaan duule iyo hogaamiye la wada muuneeyo degaankooda raggii laga tamadin jirayna ugu horreeyey. labada mid waliba wuxuu lahaa qoys iyo carruur wiilal iyo gabdhaba leh oo qaarkood intay koreen ay guryo yeesheen. mar hore ayaa laba hablood oo Afcad dhalay gu'ya dayr isxiga isla degaankaa lagu guursaday. looma soo goro fadhiisan lagamana soo doonin lamana weydiisane labadaba inta lala baxay ayaa wadaadala la raadsaday oo inta laga mehersaday lala aqalgalay. tuur markay ahaayeen iyo markay tidcadeenba waa gabdhihiisii intii ay baarka filanayeen oo hantida badan ka filanayay. ha yeeshee wuu ku hungoobay. labadoodii midna yarad lagama siin reerihii guursadayna kuma ay xididin. waxay ahayd arrin oo aad uga gami waayayo gocashadeedu ay sina u dayn weyday. dabadeedna gabdhihii iyo nimankii guursadayba wuu ka calool go'ay. Faarax Afcad oo taasi ay ku taagan tahay ayaa goor subaxa waxaa gola fardoodka ugu yimid nin ay qaraabo ahaayeen. kiibaa ku yidhi Faaraxow ma xusuusan tahay ganacsatadii awruhu u raraayeen ee gu saddexaad inta inoo timid markay inaga ambabaxayeen Gaashaan Cabdille gabadha weydiisan jiray. Faarax oo dulucda su'aashu ay weli ka daahan tahay ayaa yidhi haaho aad baan u xusuusnahay maxaad ku keentay. shala galab ayay nimankii soo noqdeen reer Gaashaan ayay ku dul furteen waxayna gabadhii ka keeneen farda baxdow miirana oo yarad ah iyo weliba bundada dhar ah oo xeebaha waqooyi ay ka soo rogeen 5 ratina ay ku soo rareen. ninkii baa sidaas ugu warramay. markaas baa Faarax la galay wuu murugooday wuxuu garan waayey waaba ilmo adeer rumaade isaga iyo Gaashaan waxa kale ayaan badnaysiiyey. haddana intuu isqabtay ayuu hoos ka istaaqfirullaystay. wuxuuse ku tashaday halhaleen inuu Gaashaan ugu tago si uu wax uga soo helo xoolaha moodka iyo noolkaba isugu jira ee yaradka loogu keenay. intii uu u sii socday ayuu tiriyey tixay wax yari naga soo gaareenoo ina adeerkii Gaashaan uu mar ku xusuusinayo sida uu isagu hablihiisii labada ahaa ugu hungoobay ee aan waxba uga dheefin. mar kalena uu ugu soo jeedinayo dharka loo keenay inuu qayb ka siiyo haddii kale uu fardaha ku qabsan doono ama uu ka dhici doono in iyaga loogu garnaqana ay xaaja ku dambayn doonto. wuxuu yidhi ninkii ina adeer dooralaa diirsan weligiise dugaag bay iga cunay
gabadha tii iilada ahayde tii iiga dambaysana shalaa jiirlada u galaye dharka iiga door yaan farduhu daawo noo noqonay gaashaan cabdilla cali dhulkaa la wareegay dubka iyo dubaaqaba naxdin baa ku baahday walwalkiisu kama dhalan dharka oo laga yaabo inuu qayb ka bixiyo ama fardaha oo ay suuragal tahay afcad inuu qaar ka booliyado wixii gelgelay gabayga ayuu ahaa dhab wuxuu uga naxay tixda uu maqlay haddiiba waxaa ka dhacdhacday haddii ay bulshadu la maqasho magaciis dambe inaan la qaadqaadi doonin wuxuu istusay inkastoo baryootan toos ah aan lagu sheegi karin haddana tixdu sidaas kama ay foga marba haddii wax isii iyo gacmo warasho ay ka dhadhamayaan waa ina adeerkii uu ku dhaato oo waa gabyaa bari iyo galbeed ay soomaalidu maansadiisa isu tabiso wuxuu ka walwalay maansada baryootanka xambaarsan inuu u barto hadhowna bulshada dhexdeeda uu ku maamuus beero waxa uu yidhaahdo oo dambana aan dhagay jaraq loo siin kolkaas buu gaashaan ku tashaday gabyaaga inuu waxna siiyo waxna u sheego ama uu axdiba ka xiro wuxuu ku yidhi dharka iyo fardahaba faaraxow waxbaan kaa siin ka horse waa inaad dhaar iigu martaa maanta dabadeed inaadan tirin doonin gabay baryootan ah iyo tixo aad wax ku doonaysatoona hadalkaas gaashaan faarax wuu garaystay wuxuu ku jawaabay hawraarsan iyo guddoon waxayna u eg tahay inuu kaga dhabeeyey maxaa yeelay wuxuu dhintay iyada oo gabayadiisa ay soomaalidu aad u tamadiso laguna wada jalbeebto dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo aad ka dhegaysanayseen laanta af soomaaliga ee v o edu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo aad iyo aad baad umahadsan